waxa uu ahaa kulan loogu baroordiiqayay allah u naxariistee marxuun cusmaan xasan cumar oo loo yaqaano Oscar. waxa uu ahaa macallinkii ugu horreeyey ee kooxda Elman, sidoo kale waxa uu ka mid ahaa raggii kooxda wax ka aasaasay. kulanka ayaa waxaa lagu casuumay qaar ka mid ah lajantiyada iyo macallimiinta kooxda soo maray muddadii kooxda ay dhisan tahay. lajantiyada kulanka lagu casuumay waxaa ka mid ahaa macallimuu Faryare, macallin Salaad, macallimuu Cabdijoon, macallimuu Cabdikuus, Yaasiimow, daafac lagu magacaabo Senegaal, Maxamuud Gurey iyo lajantiyo kale. kulanka ayaa wuxuu dhex maray lajantiyada kooxda Elman iyo lajantiyo laga soo xulay xulka qaranka Soomaaliya, waxaana ciyaarta ay ku soo ilaatay 3 gool iyo gool oo ay guusha ku raacday ciyaartooyda lajantiyada Elman. maxamed cabdulle Faryare ayaa kulanka kadib saxaafadda la hadlay. bismillaahi raxmaani raxiim. farxad weyn bay ii tahay runtii maanta inaan ka soo qayb galo munaasabadan qiimaha iyo qaayaha badan leh oo aan ugu baroor diiqayno walaalkeen Cismaan Xasan, ahaana macallinkii ugu horreeyey ee aas-aasay naadiga kubadda cagta, noqdayna macallinkii koowaad, gaarsiiya guulaha ee taariikhda ku abtirsatay Elman kuwoodii ugu badnaa uguna horreeyey. runtii Cismaan macallimiinta ku abtirsatay ayaan uu ka mid ahay. kalaabkii faca weyn ee Elman asagu aas-aasay raggii macallimiinta ka noqday ayaan ahay. kalaabkii asaga ahay waxaa macallimiin ka noqday ciyaartooydu asagu maalintaas ku aas-aasay. waxaa maamul iyo macallimiin ka noqday ciyaartooydu oo asagu maalintaas aas-aasay. ilaa ay maantana waxaa gacanta ku haya dadkii uu ka aas-aasay naadiga Elman. runtii waa geeri aad iyo aad u xanuun badan oo dhinac walba noo taabanaysa. walaalkeen Cismaan Xasan ilaahay waxaan uga baryaynaa dembi dhaaf, inuu qabriga u waasiciyo, kitaabkiisana uu midigta ka siiyo. munaasabadda maanta aan asaga ugu baroor diiqaynana runtii waxaan uga mahad celinaynaa gaar ahaan maamulka naadiga Elman guud ahaan, gudoomiye cabdirasaaq karooje oo runtii ah nin wax badan isku howlay horumarinta isboortiga ee Soomaaliya gaar ahaan kubadda cagta. waa goolhaye hore oo Soomaaliya, waa macallin heer sare ah oo macallimiinta ka mid ah dalka kuwooda ugu aqoonta badan. weliba waa macallin oo qualified ah oo macnaha international level ah, macnaha heer caalami ah, soo qaatay koorsooyin aan u suurtogobin macnaha macallimiinta kale ee dalka Soomaaliya. waa ninka aas-aasay akademiyada kubadda goolhayaasha ee Soomaaliya ee Karoojo Goalkeeper Academy, isla markaasna hadda ah gudoomiyaha naadiga. mudane gudoomiye hore u soco, waa kaa filayna intaan iyo inka badan inaad xusuusato oo aad xiriiriso leeyahay dalka. waxaana mustaqbalka adiga iyo naadigaaga iyo akademiyada iyo guud ahaan isboortiga Soomaaliya gaar ahaan kubadda cagta u rajeynayaa horumar iyo khayr fara badan. Legend Ismaaciil Maxamed Abuukar oo loo yaqaan Senegaal waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii lagu aasaasay kooxda kubadda cagta Elman. kulanka ayuu qayb ka ahaa. wuxuu ka sheekeeyey taariikhda kubadeed ee uu lahaa allah u naxariistee Cusmaan Xasan Cumar oo loo yaqaan Oscar. Elman dadka aas-aasaya ka mid ah, ninka lagu aasaasan baa ilaa 4 koob la qaaday. intaasna waxaa macallin ahaa Cusmaan Xasan Cumar, marxuumkan hadda dhintay. taariikhdiisa horena waaga hore naadiga wakaalada batroolka ummadda wada dheeli jirnay. hal naadiyaan isla ahaan, hal Generaal Daawud ma isla qaadnay ani asiga. waxaanu ku tagnay Burundi iyo Rwanda. waa ka soo noqonay koobka labaadna sekuntaan galnay horyaalka waxaa qaaday Milishibiyo, anagaa ku baxnay. waxaanu ku aadnay Burundi ha. marka naadiga Cismaan Xasan Cumar wuxuu ku soo biiray 1979 bishii afraad ku soo biiray. wallaahi billah wanaag iyo farxad iyo qosol iyo reereen aan ku xasuustaa. laakiin hadda maanta gurigiisa runta ah uu tagay. samir iimaan ilaahay naga siiyo, qabrigiisa ilaahay ku qaboojiyo, reerku ka baxayna ilaahay wax qabowga ugu soo celiyo. allah u naxariistay Cusmaan Xasan Cumar oo loo yaqaan Oscar ayaa ahaa macallinkii ugu horreeyey ee 2 sano oo xiriir ah horyaal Soomaaliya u qaada kooxda kubadda cagta ee Elman. waxauna Elman kula guuleystay sanadihii 2000, 2001, 2002. Taariikh Cali Macow, Astaan Sports.